habeen wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada wararka ugu dambeeyay dagaalka ay Puntland kula jirto kooxaha Daesh qodobada aan caawidiin haya wax kamid ah madaxweyne Dani oo 7 casho u qabtay dad reer Puntland ah oo sheegay inay la shaqeystaan kooxda Daesh iyo sidoo kale waxaan idin hayaa qodob ku saabsan dawladda federaalka Soomaaliya oo shaacisay goobta ay ku taalo dekada ay Itoobiya adeegsan doonto intaan kula wadaagin warbixinadan oo faahfaahsan daawada wax ka codsanaya in YouTube-ka ku soo biirto subscribe dhahdo muuqaalkan like noo saarto sidoo kalena gambaleelka furto si ay ku soo gaaraanin muuqaalada maalinlaha ee halka ku soo gudbino hadii aan ku bilaabo madaxweynaha dawladda Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo khudbad dheer u jeediyay shacabka Puntland ayaa sheegay in hadii aysan dawladda Puntland dagaalkan ku qaadin kooxda Daesh ay rabeen inay qabsadaan gobolka Bari iyo sidoo kale magaalada Boosaaso oo caasimad u ah gobolka Bari madaxweynuhu waxa uu sheegay in ciidamada Puntland ay gacanta ku dhigeen gantaaladii kooxdu rabtay inay ku duqeeyaan magaalada Boosaaso si ay u jabiyaan nidaamka difaac sidaasna ay ku qabsadaan ayuu yiri magaalada Boosaaso balse waxa uu sheegay in dawladda Puntland iyo shacabkeeda ay waqti fiican ku baraarugeen khatartan ku soo socotay gobolka Bari iyo sidoo kale magaalada Boosaaso dhanka kale madaxweyne Dani ayaa sheegay in calmiskaad ay ahayd meesha lagu tababaro dadka caalamka loo diro si ay falal argagixisnimo ay uga geystaan waxa uu sheegay sidoo kale madaxweynuhu inay heleen xogo cadeynaya in calmiskaad laga diray xubno falal ka geystay America qaaradda Yurub iyo dalal kale oo Aasiya ah iyo Carabta ah madaxda hawshaas qorsheyn jirtayna waxa uu sheegay madaxweyne Dani inay calmiskaad xarun u ahayd oo ay halkaasi fadhigooda ahayd madaxweyne Dani waxa uu sheegay in calmiskaad aysan ahayn khatar ku soo wajahnayd kaliya Soomaaliya balse ay ahayd khatar ku soo socotay Afrika iyo caalamka oo dhan maadaama ay ahayd calmiskaad meesha lagu diyaariyo falalka laga geysto Afrika iyo caalamkaba waxa uu sheegay madaxweyne Dani inay fursad kooxda Daesh ay ka heshay xaaladda Soomaaliya ka jirta iyo dadka Soomaaliyeed oo iyagu isku mashquulsan madaxweyne Dani waxa uu sheegay inay Puntland heshay xogo lid ku ah jiritaanka dadka Soomaaliyeed oo ay rabeen kooxda Daesh inay Soomaaliya ka fuliyaan sidoo kale waxa uu sheegay in Puntland ay xogahaasi ay heshay ay soo gudbin doonto ama ay bulshada la wadaagi doonto marka uu dhamaado dagaalka ay Puntland ka wado buuraha calmiskaad ee gobolka Bari ee Puntland Dani ayaa sidoo kale sheegay inay jiraan dad reer Puntland ah oo kooxda Daesh ka caawiya aruurinta lacagaha laga qaado shacabka Puntland dadka qaxootiga ah ayaa sidoo kale sheegay inay u gudbiyaan dadkaas kooxda Daesh la shaqeysta madaxweynuhu waxa uu sheegay inay 7 casho haystaan dadkaasi hadii ay dawladda isku soo dhiibi waayaan waxa uu sheegay in talaabo sharciga waafaqsan ay dawladda Puntland ka qaadi doonto dadka ayuu madaxweynuhu sidoo kale ku sheegay inay yihiin dad nabadoono ah ganacsato ah iyo dad bulshada liidkooda ah ayuu sheegay inay dadkaasi yihiin hadii ay ka waantoobi waayaan waxa uu sheegay in bulshada reer Puntland iyo kuwa Soomaaliyeedba la horkeeni doono markaasna ay sidaasi fadeexad ula kulmi doonaan balse madaxweynuhu waxa uu sheegay in arrimaha Puntland ka jira oo ugu horeeya dagaalku ay xooga hoos ugu dhigeen balse hadii laga fursan waayo waxa uu sheegay madaxweynuhu in ay soo bandhigi doonaan dadkaas oo uu sheegay inay kooxda Daesh la shaqeystaan dhanka kale dawladda federaalka Soomaaliya ayaa markii u horeysay si faahfaahsan uga hadashay heshiis dekedeed ganacsi oo dhexmari kara Itoobiya kaasi oo ay Itoobiya u isticmaali doonto si la mid ah sida ay Djibouti u adeegsato inkastoo wali si rasmi ah loo ogaanin dekada ay Itoobiya adeegsan doonto haddana dawladda Soomaaliya ayaa shaaca ka qaaday goobaha suurtagalka ah oo Itoobiya ka heli karto dekad ganacsiyada isticmaasho wasiir dawlaha arrimaha dibadda Soomaaliya Danjire Cali Balcad ayaa sheegay in dekada Itoobiya adeegsan doonto ay ku taalo badweynta Hindiya taasoo meesha ka saaraysa gacanka cadmeed oo ay ku yaalaan Saylac iyo dekadaha kale ee maamulka Somaliland waxa uu tilmaamay inay noqon karto dekadaha Itoobiya lagu la heshiinayo isticmaalkooda mid ku taala laga soo bilaabo Garacad ilaa Kismaayo halkaas oo ay ku yaalaan ilaa 7 dekadood oo u baahan maalgelin iyo dayactir
wasiiru dowlaha arrimaha dibadda Soomaaliya ayaa sheegay in Itoobiya aysan maalgelin doonin dhismaha dekedahaas ay adeegsanayso balse ay Soomaaliya iyo maalgeliyaal caalami ah ay maalgelin doonaanin dekeda ay Itoobiya isticmaali doonto. daawada haddii halkan nala soo gaartay waxaan mar kale ka codsanayaa in YouTube-ka ku soo biirto subscribe dhaxda muuqaalka like noo saarto kambaleel kana furto waa mahadsantahay.